بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkii ku geeriyooday ama iraahdii ku shahiiday fatahaadida wadanka ka dhacay oo dhan gobolada kala duwan waxaan leeyahay dadkaas Ilaahu naxariisto jannada firdaws Ilaah ka warabsho intaas kadib bacda maqrib ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada ku xigeenadiisa taliyaasha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan kormeer ku tagnay goobo badan ay kamid tahay degmada Xamarweyne ee biyo badan fadhiisteen degmada Xamarweyne sidoo kale waxaan tagnay degmada Boondheere degmada Wardhiigley Hodan iyo meeshaan checkpointiga marka dhinaca boorka la tagay email kala biyo fadhiisteen ujeedkan wuxuu ahaa inuu soo aragno dadka meesha dibka ka soo gaaray iyo sidoo kale meelaha biyaha fadhiisteen in xaqiiqdii dawladda waxay u gurmatay dadka inta markaas ay ka gaarsiin kartay waxaan la sheegay in 4 maalin soo socdo sidoo kale inay roob iman doonaan qolooyinka saadaasha hawada warkaas inuu soo gudbiyeen marka waxaan shacabka Soomaaliyeed inay isku gaaraan ka codsan lahaa sidoo kale madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay fareen maamulka gobolka Banaadir ciidamada qalabka sido qaybahooda kala duwan maanta ilaa 500 ciidan si volunteer u shaqeynaysay saaka ilaa iyo saacada hadda la hadla ciidamada shaqeynayo ciidamadaasna waxay u taagan yihiin inay taageeraan dadka ku soo barakacay ama guryahooda ku soo burburay roobabkii ka daay magaalada Muqdisho marka waxaan leenahay shacabka reer Muqdisho isku gurmadaan sidoo kale waxaan dawladda ay balan qaadaysaa inay sii wadi doonto dadaalada ay hadda ku jirto beerina way sii wadi doonaa guddiga la sameeyay guddigaasna wuxuu xarun u yahay gobolka Banaadir markastaan hore u sheegay xildhibaanada iyo wasiirada iyo dadka mas'uuliyiinta kale ganacsiga waxay imaan karaan qofkii kaalmeynaya dadkaas tabaalaysan gobolka Banaadir xarun labada maalmood soo socda meesha la joogi doonaa